gobolada u kala goosho qudaarna waa qaadan jiray sokorana waa qaadan jiray alwaaq iyo xamar balaaxa iyo xamar gaalkac iyo xamar xilliwina cusbaan ka soo qaadan jiray alburburjuka ka qaadan jiray iyo toofiiq lugaas iyo galcadaha mari jiray marka nin xamaashaan ahaa ilmihiisa xamaasho korsado xoogsadaan ahaa shacaad weligay baan uma istaagin shaqaa sharaf leh ii ahayd marka maqaadiir asaga kay dhacday keliyaha istaagay baashaan 4 sano ku xiranahay waana hayn laqahay marka waxyaroo bawraacaan rabay nimankaan maraykan joogan oo ii diideen keli waxay ku dhaheen maku siinayno marka indiya laga helaa layidhi gudiyo anagaan dhalo xamar joogo yaa yidhi aabay qaad anaa ku siinaya keli hindi geed midaan ku bixinaya insha allah waa saasay noqonaysaa khayr waaye nidaada khayr sheeg laakiin wuxuu haysta ma leh 6 iyaan xamar i joogtaa 10 maraykan ay joogtaa inay u joogaan kii 10aad calaash lagu wadaa marka waa iska xaadaysanahay dadka baryar rabana ma ahayn alxamdulilah dee waa qaadir waa ilaahay wuxuu dhulka saqa naxariista cirkaan laga naxariisana dee qof qurba ka qaadanaya ilaahay hatiisa qaadayo wax yaroo booraxaan u baahanahay waa iska doqonsanahay xoogaan ku xamaashamay nin xoog laanahay laakiin ma shaqayn karo laakiin qofku xoog badan ahaa 40 jiraan ahay waa ka alxamdulilah ilaahay hanti waa isiiyey laakiin waa yaruurac marka masaajidkan Cleveland ku yaal Ohio aan deganahay gobolka Ohio wadadan Cleveland deganahay masaajidka asxaaba la yidhaha agtiisa sheekh Saciid noo ah imaam teleefonkaygu waa 614-815-2913 teleefonkaygu waa 614-815-2913 waa 614-815. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi. Soomaaliya nin Soomaaliya nahay oo keliyaha loo dhaqo saa arkaysaan dhibaato i haysa awgeed aan u hadlay ma soo gelin meeshaan inaan wax iska duuduuba ambaan dad ku baryo marka keliyaha laga dhaqaa ma kaadiyo kaadiha laga mira meeshaan arkaysaan mashiintaasaa igu xiran dhiiggayga halkaas oo galaa marka waa noocaas halkaa gacantaa iga xiran tahay kaas arkaysaan maxamed xasan la dhahaa maraykanka waxaan imid 4 sano ka hor